ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أصحابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan jecelahay runtii mowduuc aad u wanaagsan inaan halkan idinka soo gudbiyo sidaan horeba idinku soo gudbin jiray anigoo ah qoraaga buugii qolka hurdada iyo buugii kale ee badhaadhaha guurka labadiba ka hadlayeen arrimaha qoyska. wax yar oo aad u fudud runtii baa laga yaabaa reeradani inay u burburaan runtii islaamka iyo sharciguna wax badan buu xaliyay wixii problema ama dhibaato ah ee reerka dhib u keenaya muslimiinta culimadu aad bay uga hadlaan. hadday dhibaato timaadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum laa taclamuun. dadka aqoonta u leh ama cilmiga ah weydiiya haddaydan garanayn. waxaan doonayaa asxaabi halkan inaan ku soo gudbiyo waxaad aad ugu farxi doontaan oo weliba ragga aad u anfici doonta insha allahu tacaala. waxay tahay waxaa jira oo had iyo jeer culimmada muslimiinta ee waaweyn xitaa la weydiiyaa sidaan kutubaha ka akhriyay oo dhalinyarta weliba guursata ay aad uga cabanayaan iyo ragguba guud ahaan waxa loo yaqaanaa af carabiga sur'atul qadfi. sur'atul qadfina waa maxay? ninka iyo gabadhu markay isu tagaan lamaanihi in uu markaa ninku biyaha markiiba soo tuuro isla daqiiqadu saa ugu tagaba ay biyo ka yimaadaan. taasina gabadhii waxay ku noqonaysaa mid markaa dhibaato ku keenaysa ama problem bay ku noqonaysaa. raaxaysigii la rabay markaa in la isku istimtaacana wax badan baa runtii dhiman. markaa waxaan jecelahay halkan 8 qodob oo lagu daaweyn karo xanuunkaas biyaha degdegaya ee ninka inaan halkan idinku soo gudbiyo insha Allah tacaala. marka ugu horeyso ninku amaliyadan qabanayo wuxuu sameeyaa wuxuu qalbigiisa soo gelinayaa isagoo shaqadii ku jira bas hawshan dhinaciisa ku wataa waa arrinkeedii ka saakad. waxaa ka mid ah in uu gabadha jirkeeda aanu eegin oo markaa meelo kale guriga iyo gidaarada iyo buu eegaya hawshan xaggan ka wataa. taasina waa hawlkeedii ka tibilaadan hakad. waxaa ka mid ah in uu raggu qaarkood ay Allahumma salli ala Muhammad inuu ninku ku ciyaarsiyo gabadhiisa xubinka taranka xoogaa markuu ku ciyaarsiyo ee uu dareemo inay biyuhu soo dhow yihiin buu oranayaa ayuu amar ku siinayaa markaa ama uu ka codsanayaa inay gacanta ka qaato kadib biyo dib ay hokanayaan. haddana taas oo kale waa arrinkeedii karta. qodobka afraad waxaa ka mid ah oo ay ragga qaarkoodna ay sameeyaan in ay gabadha ay jirkeeda Allahumma salli ala Muhammad ay ciyaartii caadiga ahayd ee ka horeysay galmada ay markaa ay sameeyaan oo iyaduna markaa arrinkaas inuu keeni karo hakad. waa dariiqada afraad. waxaa ka mid ah ragga qaarkood marka ay dareemaan in biyihii soo dhow yihiin ayuu markaa ay bedelaan qaabkii. مثلا هذه قضيات وجفتي لين أحكله أيوة مركز سمنيها مركز طول درامين بيصعدوا شكل جامع قاعد كبير بالدنيا إلى إله سبحانه وتعالى سأل الله سعد دونتان سكوبور راحيس طريقوين كهكين كربيها وحاكم ذا ذاتك مد بدية مركز هراء عيارته عادو بدنية لونكشادي تتابشادي حوله أيوة بدنية مركز درامو inay gabadha biyaheedu soo dhow yihiin saalahan hadii ay 10 daqiiqo gabadha biyaheedu ku yimaadaan inta ka horeysa uu ciyaarsanaya markay dhowr daqiiqo uga harsan tahay unba hawsha bilaabay tan waxa dhacaya in biyaha isku xilli yimaadaan isku dhaca. dariiqada toddobaad waxa kamid ah qaar badiya inay ku ciyaaraan xubinka taranka ee aadka u dareenka badan. Soomaalidu magac bay taqaanaa badri baa la xagaaf carabiga oo aad runtii aad u kaca culimadu hadaan xitaa sidoo qof indhuu casaadeen oo kale ayuu casaada oo shakligiisu isbedela xubinkaas ku ciyaarsiinaya si gabadha markaa uga soo dhaweeyo kadib gabadhu isbedelaysaa isla markiiba deetana uu hawshii gudagalaysna deetana isku dhacba imanaya biyo. waa dariiqo iyaduna lagu daweyn karo ninka biyihiisana ay u habsaami karaan. dariiqada ugu dambaysa waxaa kamid ah rag arrintan marka ay gudagalayaan waxay badinayaan ciyaarta iyo dhunkashada kadib markii labadii qof ay dareemaan in ay biyo soo dhow yihiin unbay hawshii gudagalayaan. dariiqooyinkaas ayaa markaa runtii waxay keeni karaan in ninka biyihiisii ay
dib dhacaan marka muhiimadda la doonaya wax weeyday si raaxaysigu u dhameystirmo in labadii qof ay iswaafaqaan baa la doonaya labadii biyood ayaa la rabaa buugayga qolka hurdada waan ku wada dhacay si fiican ayaan ugu sharxay oo ku yaalaan hadii alla ka dhigo aad ku arki doonto qolka hurdada qisooyin iyo cilmiye ku duugan qodobadaas oo faahfaahsan insha Allah taala buugaygaas ayaad ka heli doontaa